halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ah qeybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska africa waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf. waxaa geyiga soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin islaami ah kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysay gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee islaamiga ahaa ee ka dhashay geeska afrika. culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sanno ka hor. culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa 900 oo sanno ka hor. sheekh weli sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda reer uweys alqaadiriya. dariiqada qaadiriyada usoo horeysay geeska africa waxaa la aqoonsan yahay sheekh cabdulqaadir aljiilaani wiilashiisii mid kamid ahaa oo la dhihi jiray sheekh moxamed bin sheekh cabdulqaadir aljiilaani ardaydiisii qaarkood ayaa geeska africa usoo diray ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka africa ardaydiisii ayaa gaartay kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay marna hoosay udhaceysay sheekh baa laga yaabaa inay dariiqada ufido oo xir badan uu yeesho sheekh baa laga yaabaa yani kadib sheekh muumin oo hadda ku duugan buurha kaba ayaa isagana khaliif qaadiriye ahaa oo aniga haddaanaan hayn sheekh uu dariiqadu ka qaatay balse uu ahaa khulafadii ugu horeysay ee dariiqada qaadiriyada yani loo tiriyo kadibna hadda waxa weeyaan waxaa soo kacay yani zamankii suufiyadu ay soomaaliya aada ugu xoogeysanaysay waa xilligii sheekh uweys iyo sheekh cabdiraxmaan azaylaci iyo sheekh ismaaciil almaqdashi iyo sheekh suufi iyo laakiin asal ahaan xilligaas yani wakti dhow weeyaan soomaaliya iyo geeska africa dariiqadu asal bay u leedahay oo xilligii sheekh cabdulqaadir jilaani iyo zamanka ayay soo gaartay xilli hadda aan 900 sano ka yareen weeyaan. markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay sidee bay u fidiyeen diinta xeeladahay adeegsanayeen waxay samaynayeen maxaa ka mid ah. culimadu markay imaadeen soomaaliya waxay diinta u fidiyeen siduu ilaahay usoo dejiyey oo nabigiisa maxamed ahaana uu u dariiqeeyey ayay u fidiyeen madaaris ayay abuureen dugsiye qur-aan ayay abuureen masaajido ayay dhiseen meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen kolkaasaa wasaa'ilka ay adeegsanayeen waxaa kamid a inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reer guuraa weeyaan inta badan geeska africa ama soomaaliya inay qolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay ay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago halkaas loogu geeyo dugsiga qur-aanka halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga halkaas loogu geeyo faqihii oo wax bari lahaa oo culumta shareecada bari lahaa halkaas oo laga dhisa xadarooyin ama jaawiyo oo ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala hab oo siyaaxi ah oo socod ah ayay diinta ku fidinayeen meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tegayeen macallimiin. xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan u soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay sida uu ku doodayo brofesor maxamed cabdi gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada. waxaa la dhahaa de dariiqadii oo ugu da-weyneyd kolley waxaa markaa laga fikerayaa dariiqadan oo qaadiriyada waxaa lagu wadaa inay timi qarnigii 16aad waxaana loo nisbeynayaa inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo yeman oo weliba gaar ahaan dhinaca cadan a maaragtay weli baxsigaa wuu socdaa maxaa yeelay nin waxaa jira qoraa oo qarnigii 15aad buug qoray la yihahdo masalik al absar wuxuu sheegayaa in xilliga ayaga ah etoobiya iyo zoonaha iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu research ku sameeyey oo markaas aanay jirin wax dariiqo ah oo aanay jirin maaragtay wax zaawiyaada oo aanay jirin muriid iyo waxaan maaragtay tabaqaadkan iyo qaabka loo kala sareeyo oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aanay jirin buu ninkaas sheegayaa marka dariiqooyinku mawjada ugu dambeysa waaye oo faafinta dariiqada. waxaad waxyar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka. walaa horta waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen laakiin boqortooyinkaa jireen waxay jireen xilli dadku uu islaam noqday magarata oo conflictiga islaamka iyo baahinta islaamku aanay necessary ahayn inay dagaal u dhaco marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyooyinkii aan naqaanay annaga caadiga ah waxaa weeyaan boqortooyo waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyna ay jiraan boqortooyo ahayd laakiin boqortooyo islaam ay ahayd waxaan weliba ka arkaynaa matalan boqortooyadaas ajuuraan oo kaleeto midka madaxda waa wuxuu ahaa imaam waxyaabaha interestiga ah hadda markaan eegna abgaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabkao dhan ka sareeyo oo maaragtay go-aanka iskale waa imaam marka magacyada imaamka ah waxa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadkii shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha
marka halkaa waxaad ka garanaysaa inaan diin markaa la faafinayo ma jirin, laakiin dadku dad stable oo establish garooday oo diintu ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqortooyo ahayn. xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayagoon fara badan, ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari, ama ha noqoto dhinacan oo centerka, ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaarsiiyeen oo ilaa iyo Kenya tageen oo magac ayaga associated la bixiyeen oo la dhaho xarakadii aji. dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayey ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jebiyey jaamacadda McGill University ee dalka Canada. markii taariikhda laga hadlaayo labada dariiqo oo Soomaaliya hadda runta soo gaartay dadku saddex bay yiraahdaan laakiin waa labo, waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada ahmadiyada. labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos baxay leeyihiin oo qaadiriyadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood. qaadiriyada zaydiciya ku aftirsata oo Sheekh Cabdiraxmaan Zaydici, qaadiriya rufaaci ku aftirsata oo isagana Sheekh Rufaaci la yiraahdo ku aftirsata, iyo waysiya oo Sheekh Ways al-Faraawi. marka sidaas oo kale ahmadiyaduna waxay u qaybsan tahay saddex qaybood ayadana ay u qaybsan tahay. qaybaha markii ahmadiyada u qaybsan tahay ayadana waxa waaye muxuu waaye saalixiya, raxmaaniya waa qaad waxa waaye waa Sheekh Cali Maya iyo tiimkiisa meeshay galayaan halkaas waaye. saalixyadan waa waxa waaye Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan iyo halkaas lamidka ah marka laga hadlaayo saalixiya kusoo caan baxay. iyo waxaa jirta dandaraawiya oo ayaduna aan aad caan u ahayn. marka dadku waxay isku khaldayaan marka saalixyadu waxay kamid tahay ahmadiyada qayb kamida waay. sidaasaa marka Soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caan baxeen Soomaaliya aad uga soo caan baxay waa qarnigii 19aad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufiyada ahayd dadka Soomaaliyeed diinta qumaati u gaarsiisay oo meel kasta soo shacab bixisay oo culamo waaweyn oo Soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyagoo kooxa ah. waxaa dhihi karaa marka waa organized Sufi Brotherhood waaye. marka hore waxaa waaye si tartiib diin dadka loo gaarsii jiray culamo waxaa jirta aan suufiye ahayn oo mararka qaarkood fiqiga dhigta sida culamadii ku caan ka baxday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo Hiiraan Gal Cusbo, meesha la yidhaahdo Ambar Roox ee Nugaal ku tiilay iyo Xaafuun. meeshaas culamo fuqahaa joogi jirtay, laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka islaamka gaarsiiyo waxay ahaayeen dariiqooyinkaas ahmadiyada iyo qaadiriyada ahayd. waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka, waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamullo diini ah, waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray deegaanada Soomaalida. jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya, waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhex maray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka telinayay deegaanada Soomaalida. Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia dalkan Maraykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jameecadii ka soo baxday Baardheere 1830kii. jaamacadda Baardheere waxay ka mid tahay mid oo boqolaal jaamacado baa jiray oo ku taxnaa yani wawiyadaan oo dhan Shabeelle Jubba meel alle meesha la degan yahay jaamacadda ayaa ka dhisnaan jirtay. Baardheere aad iyo aad bay waxay military bay maartay aad u xoog badneed, waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaaba dawladihii ama boqortooyadihii markaa jiray. weliba Jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yidhaahdo boqortooyada Luuq, oo weliba Shabeellena waxaa ka jirtay boqortooyada la yidhaahdo boqortooyada Afgooye. labadaas boqortooyo laba boqortooyo waaweyn bay ahayn runtii, ayagana ciidamo badan leh. siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin, way la dagaalami jireen. marka runaantii jaamacadda Baardheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa kamid ah masalan ka ganacsiga foolmaroodiga, ka ganacsiga tubaakada, waxyaabaha ashaxumada keenayo dhan bay ay dadku diidayaan. marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada Afgooye iyo saldanadii Luuq oo iyadana xagga ilaa Kismaayo wax keensanaysay waxay diidanaayeen is-adoonsiga. masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray Afrikada bari oo dadka beeralayda labada wadadego dad bay soo urursan jireen. jaamacadda Baardheere intaba way kasoo horjeeday is-adoonsi bay jirayeen, waa lala dagaalamay. marka dambe waa tan ay maartay runtii ay jabaayaan. yani suldaanka geeladii Yusuf Cali wuxuu kasoo duulaya Afgooye kasoo duulaya ilaa Baardheere ayuu imaanaya, magaalada Baardheere wuu guraya. jameecada Baardheere waxay ku burburtay 15 sano gudahood, hase yeeshee saamaynteeda iyo dhaqdhaqaaqeedu ma wada demin. xiniftuna intaasi kuma dhammaanin sida uu sharaxayo Dr. Maxamed Cabdi Gaandi. bal waxaad waxyar ka hadashaa tartanka ama
xasaradda u dhaxaysay dariiqooyinka iyo culimada kale ee lagu tuhunsanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afgaar u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray deegaanada baardheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horreeya diiniga ah markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa. waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa, wixii kaloo soo raaci kara waan jireyna. qaybta ugu horeysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay masalan in xabaalaha la tago, la ziyaarto, maaragtay dul lagu xidho, shuruud shardi laga xidho, waxaana ay ogoleyn. kow waxaa kaleeto ayna ogoleyn oo xataa kuwan oo wahaabiga marka dambe imaanayo, taa waan usoo noqonayaa, yimaadeen maaragtay baardheere, waxaa la diidi jiray oo ay sameeyeen xarakad ah. dumarkeena waa kuwa garsin jiray oo garays bay qaadan jireen. marka waxay keeneen xarako la dhaho, xaraka lagu magacaabay cambuurey mogta, ama dhaqdhaqaaq cambuurey lagu magacaabay. oo hadda dumarka koonfurta markaad aragto, qofka dumarka waxay qaadataa garays, laakiin shaati gacmaha maaragtay markii uu soo gaadho balahbalahka oo furfuran ay dumarku qaataan si ayna garbahooda naasahooda aan u arkin, cawradooda ay u asurtaan. marka xarakadaas taasay la imaatay oo markaa qaadiriyada iyo aanay siinayn maaragtay interest oo weyn marka iyada ah. marka waxyaabo fara badan oo maaragtay practic ah oo qaadiriyadu samaysana way naqdin jireen. iyaguna marka ay difinayaan oo maaragtay kulligood waxay ku difin jireen qolyahan axmediyada qur-aanka lagu difin jiray, qoladaasina magacmaan iyo maaragtay ilaahay iyo kulli labadooda way samayn jireen. laakiin qoladana waxay u badnaayeen inay qur-aan ku jireen. marka waxaa waaye midda ugu horeysa waxaa jiray farqi yar oo diini ah. ma aha farqigu waa farqi kulle hadda sida loo hadlaayo kale ah, laakiin qoladani waxaad markaa la sheekaysato waxay kuleeyihiin bidcanimaa ku jirtay, waxaa ku jiray shirki qaadiriyada. marka annaga xarakadana markay imaatay waxay ahayd xaraka inay saxdo diinta islaamka ah, sida ay qoladan kaloo dambe cusub ee timid ay uleeyihiin. wixii hore jiray waa juhaal ay ahaayeen, waxay ku shaqeynayeen, waxay ku dhaqmaayeen waxay ahayd bidco. annagaa markaa tasxiixii wadna, annagaa salafa, annagaa kana. marka qolo waliba qolada ay ka dambayso iyo inay ka fakar fiican tahay, fakarkeedu sax yahay ay qabtay. waa qodobka labaad waxaa weeyaan audiensiga dadka adig ku raacayana waa lagu tartamayo. marka waxaa more aggressive ahaa qolada gadaal ka timid oo weerar badnayd. macnaha waxaan ka hadlaya saalixiyada. maxaa saalixiyadu waxay dul timid ayadoo dadku uu qaadiriye yahay ay yimaadeen. marka si ay isbays soo helaan iyo meel ay isku cabiraan iyo dad ayaga raaca iyo dad maaragtay fakarkooda faafiye iyo waxaa waaye waa inay abuuraan waxyaabo oo xiisad keena oo dadka soo jiita. way intaynaan hore uga sii socon halkaas, bal waxaad waxay ka hadashaa baardheere xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ka socday wuxuu uga duwanaa dhaqdhaqaaqyada kale ee dariiqooyin kale. wallahi horta wuxuu ahaa waxaa la sheegaa mar nimankaas inay saalixiya noqdeen mogta, laakiin anu informationka iyo qoraalada anoo aan arkay oo aan akriyay, niman culimaa oo wahaabi ah ayaa waxay ka yimaadeen najdi oo sacuudiga ah. nimankaasi waxay tageen meesha laada baardheere, culimo badan oo halkaa joogta ayaa lala kulmay, waa lala hadlay. halkaa waxaa jiray nin sheekha oo culimada hogaaminaya oo sheekh yabarow la yidhaahdo, soo garan. culimada baardheere degan qabaailka soomaalida oo dhan oo isku dhafan bay ahaayeen. nidaam iyo dawladnimay sameeyeen. waxay diideen maroodiga in la laayo, waxay diideen in si xun loo labisto, waxay isku dayeen inay tasxiix oo diini ah sameeyaan oo dhahaan wixii hore la haystay waxaa waaye waa bidco. waxay weeraro ku qaadeen markaa dadka soomaalida markay fakarkaa qaateen. waxay aadeen ilaa iyo baraawe oo markaas dadka laga dhoofiyo oo lakasoo qabto laga dhoofiyo, maroodiga saantiisa iyo laga dhoofiyo. deegaanadii xeebaha oo baraawe iyo marka iyo xamar iyo geladi boqortooyooyinka halkaa ka jiray oo faraha badnaa waxaa la isku biiray. qolihii xeebuhuna lacag bay keeneen, geladiguna waxay sameeyeen ciidan baa la dumay. nin suldaana oo walaalkii suldaanaha oo la yidhaahdo axmed baa ciidankii hogaaminayay. weerar baa lagu qaaday. marka baardheere waa la gubay, waa laga adkaaday markaa islaamiyiintii halkaas ka samaysay. inkastoo jameecooyinka iyo dariiqooyinka islaamku ay jireen, haddana khubarada taariikhda islaamka iyo tan soomaalidu waxay aaminsan yihiin in imaatinkii gumaysiga ee afrika uu sii horiyey tartankii u dhexeeya dariiqooyinka iyo xarakooyinkii kale ee diiniga ahaa.
qaybta afraad ee u dambaysa taxanaha taariikhda islaamka geeska afrika waxaan ku eegi doonnaa tartankii u dhexeeyey dariiqooyinka gaar ahaan xertii ay kala hogaaminayeen sheekh uweys bin moxamed bin muxaad bin bashiir ama sheekh uweys alqaadiri iyo xertii sayid maxamed cabdulla xasan